dunidan aynu maanta ku noolahay baahiyaadka aasaasiga ah ee uu qof kasta u baahan yahay waa isticmaalka internetka, kaas oo aynan u dulqaadan karin hal daqiiqo inuu nolosheenna ka maqnaado. Haddaba waa maxay 5G ama jiilka shanaad ee tiknoolajiyadda? Ku soo dhowaada xubinteenna maanta. Magacayguna waa Cali Ibraahim. waqtiyadii hore ee ay taleefanadu soo baxayeen waxaa la isticmaali jiray 1G, 2G iyo 3G. marka website la booqdana xawaaraha internetku waxa uu ahaa mid daciif ah. sidoo kale waxaa suuragal ahayn inaad si fasiix ah ku daawato muuqaallo iyo inaad ciyaarto geemiska loogu talagalay internetka. sanadadii aynu soo dhaafnay waxaa la hirgeliyey 4G ama jiilka afraad, balse nasiib darro ma uusan gaadhsiisnayn heerkii la rabay ee ahaa inuu xogta ama macluumaadka ku gudbiyo wax ka yar millisecond. qofku marka uu doonayo inuu soo dejiyo muuqaal HD ah, si kasta oo xawaaraha internetku u kala duwan yahay, ugu badnaan muuqaalka 1GB ahi waxa uu ku soo degaa 8 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo inta u dhaxaysa, waana xilli aad u dheer marka la barbar dhigo tiknoolajiyadda cusub ee 5G. 5G-gu waa tiknoolaji xawaarihiisu aad u dheereeyo, millisecond gudihii ayaa xog kasta la isku gudbin karaa. marka ay si buuxda u soo baxdo tiknoolajiyadda cusub ee 5G, waxaa la qorsheynayaa inaan dunida dib loogu arag gaadhi uu qof ibni aadam ahi uu wado, maxaa yeelay hawshaas oo dhan waxaa la wareegayaa 5G oo lagu naanayso xawaarihii horumarka ee sixirka ahaa ama the speed of magic. haddii makiinadaha iyo ibni aadam ku yeeshaan xidhiidh millisecond gudihii ah, sida inay isla fikirayaan oo kale, waxaa dunida ka dhici doona isbeddel taariikhi ah, kaas oo aan dunida hore loogu arag. dhakhaatiirtana waxaa u fududaan doonta inay qalliimada u sameeyaan si fudud oo dhib la'aan ah. dadku waxay awoodi doonaan iyagoo aan safrin in ay wada kulmaan sida laba qof oo jooga laba qaaradood oo kala fog. tiknoolajiyaddan faa'iidooyinkeedu kuma koobno oo keliya xawaaraha internetka oo kordha, balse waxay leedahay faa'iidooyin nololeed. dalka China waxaa laga hirgeliyey ku dhowaad 4 waddo oo casri ah, kuwaas oo loo qorsheeyey inay maraan baabuurta uusan wadin ibni aadamku ee ay wadaan tiknoolajiyadda cusub ee 5G. dowladaha sida tooska ah u bilaabay adeegyada 5G-gana waxaa ka mid ah Koonfurta Kuuriya, China iyo Mareykanka. khubarada caafimaadku waxay warwar ka qabaan khatarta caafimaad ee ay sababi karto tiknoolajiyaddan casriga ah. sidoo kale khubaradu waxay sheegeen inay dhibta ugu badani soo gaadhi karto hooyooyinka uurka leh iyo carruurta ka yar da'da qaangaadhnimada. tiknoolajiyadda 5G-ga maadaama ay xawaaro badan tahay, waxaa xoog leh radiationka ay bixinayso. sidoo kale signaliska ka soo baxaya device-yada ama aaladaha lagu isticmaalayo waa kuwo khatar weyn ku noqon kara aadamaha. dowladaha waaweyn waa kuwo la tacaali kara radiationka 5G-ga, balse haddii uu Afrika u soo gudbo, warwar xoog leh ayaa laga qabaa, waana sababta ilaa hadda 5G-ga looga isticmaali laayahay. dalka Masar usbuucyadii aynu soo dhaafnay waxaa ka socday dibadbaxyo looga soo horjeeday hirgelinta 5G-ga. dadkuna waxay ku doodayeen inay u baahnayn radiation iyo caafimaad darro ka timaada tiknoolajiyadda. waxaa la qorsheynayaa marka la gaadho sanadka 2025 in dunida oo dhan si official ah loogu baahiyo tiknoolajiyadda cusub ee 5G, maadaama uu dunida dib u dhac weyn ku keenay caabuqa COVID-19. muddo 10 sannadood ah kadib, waxaa la arki doonaa tiknoolajiyad cusub oo aan hore loo arag, taasi oo saameyn doonta shakhsi kasta oo dunida ku nool. marka ay hirgasho tiknoolajiyadda 5G-gu, waxaa fududaan doonta in si dhib yar loo jabsado xogta iyo macluumaadyada ku kaydsan moobaylada iyo kombiyuutarada aynu sida maalinlaha ah u isticmaalno. taasi waxay fursad u tahay dadka hakariska ah. daawade ma jeceshahay ama ma ku tala jirtaa inaad ka mid noqoto isticmaalayaasha 5G-ga ama jiilka shanaad ee tiknoolajiyadda? fadlan jawaabtaada hoos noogu reeb. intaas ayaan ku hakinaynaa xubinteennii maanta. intaynu mar kale kulmi doonno daawadayaal, waxaan idinku dhaafayaa nooli kulante.